anigu waxaan ku soo koray qoys Soomaaliyeed magaalada Gabiley la yiraahdo Hargeysa waxay u jirtaa 220 mayl waa dad beerana leh xoolahana dhaqda baayac mushtarigana ku jira 80 sanadood ee ugu dambeeyay waxa la nagu soo ababiyay markaanu caruur tahay in ay adduunyada lagu dhiso laba qowdood labada haddaanad mid hayna amba qof haw amba ummadan haw haddaanad labada mid hayna waxa la waxad qabsan kartaa inaan jirin adduunyadan aad ugu dambeynayso saaqad noqonayso waa inaad amba aqoon sidaayad aqoon abuurta knowledge inaad abuurto amba inaad maal xoolo aad abuurto waa labadaas Maraykanka ballaaran ee 310 malyan qof ay ku nool yihiin wadamo ka dad badan way jiraan oo Shiina iyo India iyo ba kamid ah wadamo ka ballaaran way jiraan oo Canada iyo Ruush iyo wadamo kale oo caynkaas jira Maraykan waxa maanta adduunyada ku hantiyay waxa weeye labadaas ayuu ka adkaaday ilaa 4000 oo jaamacadood ayaa wadanka Maraykanka maanta ku yaala Yurub oo dhan bariga galbeed marka la isku wada daro ka fara badan Minnesota aan joogno inta jaamacadood ay ku yaala taradooda wad garanaysa labadan magaalo ee Twin Cities ka St Paul iyo Minneapolis oo qura waxa ku yaala ugu yaraan 20 jaamacadood amba laba sanadood ha noqoto afar sanadood amba ka badnaatay waxa la yiraahdo post secondary education ayaa ku yaala waa labadan magaalo oo qura waxa ku nool 85,000 oo arday oo jaamacada ku jira waa magaaladan markaan professoroodii iyo dadkii kala shaqeynayay aad ku dartana hadalkayga bada 100,000 baa la dhaafaya aqoontii Maraykanku sidaa ayuu xoolo u galiyay xoolihii iyo maal adduunyada waa dhaqaalihii adduunyada ugu weynaa oo waxa laga hadlayaa maxaan ku raahay 13 ilaa 14 trillion oo dollar inuu dhaqaalaha Maraykanku yahay labada dadka aan midna hayn waa dad cillad taagan oo maxaan ku raahay khasaare iyo guul xumo ay had iyo jeer hortaalo marka waxa halka ina dhigay Soomaaliyeena maanta halka dhigay marka gunta hoosta sii qoto labadaaba faqri baynu ka nahay aqoonna faqiir baynu ka lahaynay gaajo iyo maxaan ku raahay dhaqaale la'aana waaba aynu u lahayn hidab muddo dheer qofka Soomaaliya maanta Maraykan jooga ee state-kan Minnesota jooga ee aan fahamsanayn waa inuu imika fahmaa dhaqaalaha iyo aqoontuna way isku xidhan yihiin oo research baa la soo sameynaya maalkii baa la gelinaya maal intii ka badan bay dhalinaysaa maalkaas la qaadaya dib loogu celinaya researchki amba caafimaad ha noqoto amba technology ha noqoto science ha noqoto literature ha noqoto wixii maskaxda lagu ballaarinay sidaas ay isku noqonayaan labadoodu marka waxaan ku leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed rag iyo dumar yaan caado xun oo aan hore u aqoon laydin barin oo ah rag iyo dumarku way kala sareeyaan yaan laydin barin rag iyo dumarku way siman yihiin Ilaahay baa wada abuuray xaq bayna adduunyada ku wada leeyihiin fursadaha iyo opportunities way wada leeyihiin rag iyo dumarba waa inaad ku dadaashaan qoys walba waa inaad guriga aad joogto waa inuu library yeesho aniga waa adigan gurigaygan arkaya ya inta xoolo iga gashay aqalka hoostiisa oo dhan library inaan ka dhigo waa adiga arkaya halkan aan wax ku qoraa wax ku akhrista soo damaad garan intaan noolahay haddaan 100 sano damba noolaada in la akhri kara way horta la maanta guriga joogto waa inay caruurtu barataa inay buugag hor yaalaan la akhri karo ya ay noqoto oo meel wax lagu qoro wax lagu akhriyo gurigu ha noqdo oo lagu wada doodo oo ra'yiga adduunyada la isweydaarsado halkaas ilbaxnimada ku jirta iskuuladana in si wanaagsan loo gala waa badee mid wadada qura furan way dhaqaalihi adduunyada taasa keenayso qofkii wax bartay wuxuu garanayaa opportunitieska maxaan ku rahay seeladu ay keenayso iyo sida loo ama hadal lacag amba loo dhaqo ee meel kale loo geliyo loo shaqeeyo aqal loo dhisto waxaas ay keenaysaa amba shaqo wanaagsan oo aad ku noolaato intaad noosho marka Maraykan iyo Minnesota waxa yaala waqti wanaagsan opportunities baa yaala meel kale aanay jirin waxa weeye khasaaraha ugu weyn adduunyo iyo ceebta ugu weyn intaad qaxootinimo Soomaaliya kaga timaado oo Maraykan soo gasho Minnesota soo degto
oo aad wax ka baran weydo ood xoola ka dhaqan weydo adiguna waxba cid u tari maysid oo dee waaba khasaaradee soomaalidii kale aad u keenayso adiguna halkaasaad ku baabi marka aqoonta ha lagu dadaalo iskuullada ha lagu dadaalo maantana waxaad moodaa warka ka soo baxaya inuu sheegayo inay jiraan 10% meelaha 10% soomaalida oo aflaxday inay jirto dhulkan 50% in ku dhowna ay weli ciirciirayso inta kalena 30-40 khasaare qaarkood jeelkay ku jiraan oo xabsiga ku jiraan marka waxaad moodaa dadka Soomaalida xaqii dhaqaalaha inay aad u hooseeyaan xaqii aqoonta la fahanteeda inay aad u hooseeyaan marka loo eego dadka ay ku dhex nool yihiin gobolkan Minnesota research-ku caynkaas u dhigaya de marka wada qurun ba furan wadadii dadaalka mitidka fursadaha laga faa'iideysto in caruurta sida lagu abuuro dadka waaweyni aqoontu dacma lahe ilaa intaad xabaashi galayso inaad sidaa u wado hawlaha caynkaas ayaa inoo furan waxna aan ka qaban karnaa haddaan taa ka adkaanana adigoo halkaagan iska jooga ayaad ummadii Soomaalida ee geeskii Afrika ku xidhnayd aad wax u qaban kartaa